dadkan waa dad mucaarada waa dad imaaraad soo dirsaday waa dad Itoobiya soo dirsadeen waa dad jeebabka inta loo soo buuxshay la yiri dawladdiina soo dumiya wali aan ka go'ayn niyadayda oo shacabka Soomaaliyeed aan ka go'ayn oday 80 jira oo dhulka lagu jiidayo oo la garaacayo waxaan noqonay baruur si loo cunay garan laayahay taa waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed waa in ay isku duubni muujiyaan meeshan waxa isku yimi waa aragteen umadooda argagixisa ahaan jiray macluumaadkan sheegaya isaga annaga marna ka nari fiqi waa ahaan jiray oo ma hasalaad waa ka tirsan haddana leeyahay ka tirsan annagu waxaanu arki jiray dawlad mucaarad weerardah laakiin waa taariikhda kow mucaarad dawlad weeraray mucaaradkuna ma rabaan Soomaaliya inay degto dadkan waa dad mucaarada waa dad imaaraad soo dirsaday waa dad Itoobiya soo dirsadeen waa dad jeebabka inta loo soo buuxshay la yiri dawladdiina soo dumiya hadii shalay dagaal ba xamar ka dhacay Soomaalida waxay ku mahmahdaa dad munaafiq shiday muslim baa ku gubtay marka dabkii shalay waxa shiday dad munaafiqiina oo mucaarada oo dawladdii federaalka ahayd weerar ku soo qaaday annagu waxaanu arki jiray dawlad mucaarad weerardah laakiin waa taariikhda kow mucaarad dawlad weeraray madaxweyne maxamed Abdullaahi Farmaajo wuxuu caan ku ahaa in isagu ma taqaan oo mucaaradka kale oo dhaho la fariisamayo la hadlimayo la heshiimayo waa weeraraya oo qaybta u weeraray laakiin xasan sheekh maxamuud gobol baa meel u taalaba ninkan wuxuu leeyahay soo fariista walaalayaal qodobadii waa uga tagay waa uga tanaasulay waxaan ay doonayaan oo shacabka masaakiinta ku kacinayaan aniga waxay la tahay waa wax qaldan maxaa yeelay shacabkan iyaga soo kiciyay shacabkuna meel aan dan ugu jirin hadda waxaan malaynayaa sabtida waxay ku dhawaaqeen banaanbax kale shacabka Muqdisho waxaan ugu baaqayaa inaysan arrimahaas gelin dadkan waa dad mucaarada waa dad imaaraad soo dirsaday waa dad Itoobiya soo dirsadeen waa dad jeebabka inta loo soo buuxshay la yiri dawladdiina soo dumiya marka yaan la idinku dirin dadkiina waxyaabahaas ha gelinina ka gaabsada la shaqaysta dawladdiina iyo madaxweynihiina tan kale mucaaradku waxyaabaha foolxumada ay rabaan waxyaabo badan baan rabaa inaan fahansiiyo adan madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu joogaa New York shirkii qaramada midoobay buu u joogaa khudbadiisa haddii xamar wax ka dhacaan dhaawac baa galaya oo caalamku soo u ciiseynaya ilaa waxyaabaha nabadda Soomaaliya ka jira iyo waxa soo waramaya dhaawac baa galaya mucaaradkuna ma rabaan Soomaaliya inay degto waana mahadsan meeshan waxa isku yimi waa aragteen umadooda argagixisa ahaan jiray macluumaadkan sheegaya isaga annaga marna ka nari fiqi waa ahaan jiray oo ma hasalaad waa ka tirsan haddana leeyahay ka tirsan oday waa yara waa daawanaya lugta la jiiday si neef ariyo baqtiyo kale la jiiday waa arkay muxaaradii meeshan waxa joog dhamma waa mooryaanba nina al-shabaab iyo maxaakiim soo maray meeshan kuma jiro kan calimaha hadda la leeyahay waa maxaakiimtu ka tirsan isaga afkiisa ka yiri annagu maana oran qori baa la yiri waxaan joogo ma hasalaad waa kan fiqi waa kan waxaan oo dhan waa wada mooryaan weey warar la macaan xamar waxaan waligeed waa ku socotay ilaa iyo dawladii soo dhacday 91kii maalin baa qolada meesha ku amar taagleynayso waxa ummadda Soomaaliyeed waqti ka riday ragaadiyay waxa kamid ah magaalo madaxda noocaas oo kala anigu waxaan codsan lahaa si degdeg ah inuu laga tashado ummadda Soomaaliyeed ka tashato magaalo madaxda kale ay samaysato waayo magaalo madaxdii maalinba ka soo reemaysaa sanadba sanad ka dambeeyo waa sidii bay taagan tahay ummadda Soomaaliyeed waqti laga qaadin magaalo madaxda ummadda Soomaaliyeed laga bedelo meel kale laga dhigi lahaa hal laga tashado waan ururin lahaa aniga waxay sameeyay magaalada dhan baa waxay tahay xamar marka ay egtid muuqaalka laga soo diraa wax aad ku oday waa yara waa daawanaya lugta la jiiday si neef ariyo baqtiyo kale la jiiday waa arkay marka way dhacdaa taas laakiin waxaan u codsan lahaa ummadda Soomaaliyeed ka codsan lahaa magaalo madaxda ummadda Soomaaliyeed Muqdisho waqtigeedii waa dhaaftay in inta ka badan loo soo dulqaato ma ahan sidii ay magaalo madaxda ummadda Soomaaliyeed loo bedeli lahaa oo laga tashan lahaa si degdeg ah baarlamaanka Soomaaliya uga qayb galaan intaas aan codsan lahaa muxaaradii meeshan waxa joog dhamma waa mooryaanba nina al-shabaab iyo maxaakiim soo maray meeshan kuma jiro kan calimaha hadda la leeyahay waa maxaakiimtu ka tirsan isaga afkiisa ka yiri annagu maana oran qori baa la yiri waxaan joogo ma hasalaad waa kan fiqi waa kan waxaan oo dhan waa wada mooryaan weey wallahi billaah tallaahi waa mooryaan beena ka sheegi ma ummadda Soomaaliyeed laga rarray meeshan magaalo madaxda meeshan waxa isku yimi waa aragteen umadooda argagixisa ahaan jiray macluumaadkan sheegaya isaga annaga marna ka nari fiqi waa ahaan jiray
oo mahad salaad waa ka tirsan yahay haddana leeyahay ka tirsan yahay marka ummadda Soomaaliyeed waxa leeyahay waqtiga laga ridin magaalo madaxdana ha laga bedelo meeshan waa meel wax ka soo hagaagayana ma ahan ummadan islaamiyada lugoyn 30 sano lugoyn ku jirnay 30 kala dambe uma dul qaadan karnaa leena radaan nahay Soomaali waxaan noqonay baruur si loo cunay garan laayahay ka waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed waa in ay isku duubni muujiyaan qodxa badan dhigay marka ninkaas wuxuu og yahay wadanka hogaaminayo oo aan u bixin ninka waalan muqdisho horta mucaaradka iyo dawladdu ee ahay wixii meesha isku dhaxyaacay balse ahaateen dalka maanta wax lagu mideysan yahay ma muuqato inay yaalaan min siyaasadda ka fashilmay oo inuu waalan yahay iyo inuu shaqaal yahay aanu kala garan laanahay ma dalka madaxweynaha ka oo maalin walba meel taagan arrimihii dibadda ku fashilmay oo maalin walba kala hoos uga jira arrimihii gudaha qodxa badan dhigay marka ninkaas wuxuu og yahay wadanka hogaaminayo oo aan u bixin ninka waalan in siyaasiga mustaqbalka soo socda raba inuu qodxo u dhigo dalka sidoo uu mashquulo mandate marka waxa leenahay Xasan Sheekh Maxamuud radaan nahay Soomaali waxaan noqonay baruur si loo cunay garan laayahay ka waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed waa in ay isku duubni muujiyaan si guud ahaan hadaan uga hadlo dalka iyo dadka dhan baa dhibam marka Xasan wuxuu u baahan yahay Soomaali oo mid ah inay ka hortagto waxaanu rabnaa kuwa sababta bixinta sheegtay iyo kuwa isteedada madaxda ka haba inay ku hogaamiyaan shacbiyada Soomaaliyeed mudaharaadyo waaweyn oo salmiya si looga hortago ninka waalan ee Soomaaliya dib u dhac ku sameeyay wali aan ka go'ayniyadayda oo shacabka Soomaaliyeed aan ka go'ayn oday 80 jira oo dhulka lagu jiidayo oo la garaacayo oo aan loo turay wallaahi aad baan ku salaamayaa Swiss wax la yaab leh baa ka dhacay waxaad moodaa turin la'aan inay halka ka dhacday in lagu go'ad falayo dadka islaamka halka degan waxaan leeyahay madaxweyne Xasan Sheekh dadka Soomaaliyeed xadiis baa ahaa oo iga dhunsan yahay haday dad fiican yihiin madax fiican baa qabsan lahaa Xasan waxa leeyahay Soomaali caqabad buu ku yahay waxaan rajaynaynaa Ilaahay fadligiisa inuu 8 bilood oo hadhay uu dhamaysan oo Soomaali ka hor leexdo waxaan ugu baaqayaa dadka reer Muqdisho walaalahay ah sida ay sheegeen mas'uuliyiintii hore dawladda Soomaaliya ay ku baaqeen 27 bisha ay u soo baxaan inay iska dulqaadaan rejiimkan qabuuraha faganaya oo dadka Soomaaliyeed qol walba meel ku qoqobay iskuna diray inay Ilaahay baryo Ilaahay inuu ka dulqaado ummadana gacmaha ay ka qabtaan walaalay Swiss waxa la yaabka igu ahayd oo wali aan ka go'ayniyadayda oo shacabka Soomaaliyeed aan ka go'ayn oday 80 jira oo dhulka lagu jiidayo oo la garaacayo oo aan loo turay marka waxay nagu noqotay waxayna soo xajistay dawladda kacaanka anagu ma soo gaaray waa yaraa qaabkay dadka u gali jirtay waliba aan saas aan ahayn waxaan wax la yaab la weey marka waxaan ugu baaqayaa dadka reer Soomaaliyeed dhammaantiis inay gacmaha qabtaan Xasan Sheekh xukuumaddiisa